magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa kulan ku yeeshay wakiilka qaramada midoobay qaabilsan wadanka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. kulankoo lagaga hadlay arrimo dhowr ah ayaa si gaar ah xoogga looga hadlay ama xoogga loogu saaray arrimaha doorashooyinka ee wadanka Soomaaliya. warbixin inta ku saabsan waxa magaalada Jowhar inooga soo diray waryaheena Ibrahim Ali Nuur. kulamadan oo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo magaalada Jowhar gaar ahaan garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo kula yeeshay mas'uuliyiinta ugu sareysa dawlad goboleedka Hirshabeelle oo uu horeeyo madaxweynaha Hirshabeelle Madaxweyne Waare qaar ka mid ah labada gole ee dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. intii ay socdeen kulamada ayaa waxa looga hadlayay dareenka ay ka qabaan madaxda dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada rayidka ee ku dhaqan caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar doorashada la filayo in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo. markii uu kulanka soo dhamaaday ugu horeen waxa warbaahinta la hadlay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. We are here in Jowhar, capital of Hirshabelle federal member state, as the second stop in a series of consultations that we are making in federal member states as well as at the national level to discuss key priorities in Somalia for 2020. We're conducting these discussions as 2019 comes to a close so that we as international partners can understand fully the concerns of stakeholders at the national level and at the federal member state level. dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle Madaxweyne Waare oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in is-afgarad uu ku dhamaaday kulankii ee la yeesheen wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. imaatinka ay noo yimideen iyo waqtiga ay noogu yimideen waa waqtiga ku munaasabka ayaan aaminsanahay. waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, arrimaha samafalka iyo bini'aadanimada iyo guud ahaan xaaladda ay wadanku ku sugan yahay. gaar ahaan waxaan si aad ah uga wada hadalnay arrimaha la xiriira doorashooyinka 2020 iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan wadanka guud ahaan gaar ahaan Hirshabeelle. runtii waxaan yeelanay wada hadal aad u dheer annaguna fikradaheena iyo dareenkeena iyo rajooyinkeena iyo cabsiyaheena intaba waa u gudbinay. waxayna qayb ka noqon doontaa wada tashiyada guud oo wadanka oo dhan laga sameyn doono. waxaan rajaynaynaa in tala fiican oo wanaagsan oo aan raalli isaga wadanahay dhibaatana aysan nagu soo gaarin inay ka soo bixi doonto. dhinaca kale go'aanka dawlad goboleedka Hirshabeelle ee ka qaadatay doorashada dalka Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo sanadka 2020 ama 2021 waxaa saxaafadda la wadaagay wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed. mowqifka dawlad goboleedka Hirshabeelle ee ku aadan doorashooyinka sanadda 2020 dawlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay soo saartay go'aanadan. qodobka koowaad doorashooyinku waa inay ku dhacaan waqtigooda wax muddo kororsi ahna la iska ilaaliyo waa heer federaal iyo xubnaha dawladda federaalka xubnaha ka ahba. Ibrahim Ali Nuur TV-ga Universal garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe.